waxaa jiray nin reer miyi ah oo ka tirsanaa ciidanka boqorka. qaadiga magaaladuna aad buu u necbaa ninka, waxaanu u dhigay dabin ka dhigay boqorku inuu ku xukumo dil. laakiin islaantii dhashay reer miyiga ayaa u tagtay boqorkii iyadoo u weydiinaysay inuu iska cafiyo inankeeda. boqorkiina uu ka xishooday oo islaanta da'deedu waxa ay kor u dhaaftay 100 sanno. boqorkii ayaa ku yidhi islaantii, waxaanu sheegayaa qaadiga inuu 2 warqadood soo qaado, midna uu ku qoro waa la dilayaa, midna uu ku qoro waa la daynayaa. inankaaguna labadaas u kala dooran doonaa, kolba tii uu doorto ayaana lagu xukumayaa. way iska soo baxday islaantii iyadoo aad u murugaysan, waayo waxa ay ogeyd inuu qaadigu necab yahay inankeeda. 2 warqadoodna uu ku wada qori doono waa la dilayaa, oo kolbata uu qaato inankeedu waa la dili doonaa. inankeedii ayaa ku yidhi, ha warwarin hooyo, sidii khayr la ilaahay baa oge. sidii ay filatay islaantu, qaadigii waxa uu ku qoray 2 warqadoodba waa la dilayaa. maalinkii ballantaana la gaadhay, dadkii iyo boqorkiina way isku soo baxeen si ay u daawadaan waxa ku dhici doona ninka. markii reer miyigii la keenay, waxa uu qaadigii ku yidhi kala dooro 2 warqadood. wuu dhoola caddeeyey reer miyigii, warqad ayaanu doortay, kadibna intaanu kala furinba u liqay. boqorkii ayaa yaabay oo idhi, war maxaad samaysay? warqaddiiba waad liqday annagoo aan arag waxa ku qorane. reer miyigii baa yidhi, mudane, warqaddaan doortay waan liqay anigoo aan ogaan waxa ku qoran. si aad u ogaato wixii ku qornaana eegta soo hadhay, waxay taasi noqoto ka soo horjeedkeeday ahayd taan liqay. warqaddii ayuu boqorku eegay, waxaana ku qornayd waa la dilayaa. dadkii meesha joogay waxay ku qayliyeen wuu badbaaday, oo tawliqay waxa ku qornayd waa la daynayaa. sidii ayaanu ku badbaaday ninkii oo waa la sii daayey.